بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم walaalayaal walaalaha muslimiinta ee Soomaalida ah salaanta kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku baraarujin lahaa in laga qayb qaato si wanaagsan oo dadaal badan masaajidka Masjidul Huda ee ku yaala bariga London muddo qabiyo ah 18 bilooda lacagtii loogu talagalayna 1 milyan iyo 200 baa u haray oo gini waa lacag badan masjidkaasi waa masjid dad badan ay ku xidhnaa dadaal badanina uu ka socday diinta Ilaahayna loogu hiilinayay sidaa daraadeed waxaynu dhiiri gelinaynaa wixii waqafay qofku dhiganayo ama waalidkiisa uu dhigayo inuu ka qayb qaato Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu ga marxaati kacay dadka ka qayb qaadanaya dhismaha masaajidada iimaan إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية قفك عمرية مساجدك اسمها كو عمرية سيابها الله عمره كمدية اسمه كوكي هاي وقف رميستان إلهي آخرة إلهي نوحو بلنقاضي إنه كو أبال مرين دونه نحريس ديسة يهنون كيسة مركا الدليل بدن باكو صاروري ويمكال كانينان كو كوبي كرينين مركا مسجد كاي مساجدة كلابا wixii aynu gelinaynaa waa wixii xaasil inoo ah ee akoonka Ilaahay inoogu jira ee aynaan ka warwarayn uu inaga lumo wixii kale oo dhan dad baynu uga tageynaa inaga dhaxlaya marka arinta aad baan ugu celcelinayaa masaajid badan waa ka qayb qaateen lacagna waa ku bixiseen waan ognahay dadaal badanna waa ku jirtaan walaalihiina Soomaalida gaar ahaan dadka dabadda laakiin waa inta inoo tirsanun mar hadduu akoonka Ilaahay inoogu jiro jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum ilaahayna ha inagu anfaco wixii sadaqa aynu bixinayno hana inagu ilaaliyo dadkeena iyo dunyadeena iyo ubadkeenaba nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ballan qaaday qofka masjid dhisaya inuu ilaahay u dhisi doono guri jannada man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna guriga jannaduna dee gurigan adduunyada la mid maaha waa ka qaarisan yahay waana ka qiimo badan yahay waanu waaraya marka quraanki iyo xadiidkii labaduba waxay noo yabooheen ballanqaad weyn ay noo dhigeen qofka ka qayb qaadanaya masaajidka waxa uu helaya wanaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh